walaalahayga sharafta leh maanta waxaan idin wadaa arrimo khayriyaad ah oo aan u baahanahay inaanu ka wada shaqeyno. fadlan waxaan rajeynayaa inaad ka codsanaya inaad si wanaagsan ii dhageysatid waxa aan ka hadlayo inta aadan hore isu dhaafinin. walaalayaal, hadalka oo kooban waxaan idin leeyahay oo aan doonaynaa in aanu iibino warshad oxygen-ka samaysa oo u baahan yahay isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho oo la yiraahdo Martini. isbitaalkaasina waa isbitaalka kaliya ee qaabila bukaanka COVID-19. waa anigii oo Yaasiin Cabdullaahi ah. waxaan deganahay magaalada Göteborg ee dalka Sweden. waxaan ognahay in cudurka corona uu dishay oo dilay dad fara badan oo Soomaali ah oo hal door ah, laakiin waxa ka sii daran oo tiradoodu xataa aan la haynin dadka faraha badan leh oo soo gaari waayay magaalada Muqdisho ama isla Muqdishada dhexdeeda xataa aan isbitaalka imaanin. laakiin dadku waxay u dhimanayaan oxygen la'aan. oxygen-ta laga isticmaalo isbitaal Martino waxaa lagu keenaa haamo ama cylinder. qofka yaqaana ayaa yaqaana. haamaha halkan baa idin soo saaraya, waad arkaysaan sawirka haamaha lagu keenaa. waxaan u baahanahay warshad samaysa oxygen-ta. hawadan maanta aanu ku naaloonayno, aan ku raaxaysanayno, oxygen-ta ku jirta waa 19 ilaa 21% ayaa ku jirta. warshadda waxay noo samaynaysaa hawo nadiif ah oo oxygen nadiif ah oo concentrate, macnaha isu dheelitiran oo boqolkiiba 95 ilaa boqolkiiba 99 ah ayay noo samaynaysaa. muhiim weeye weli inaan warshadaasi aan iibino. warshada qiimaheeda oo total ah oo isku jira, macnaha warshadii la iibiyay, qalabkii loo iibiyay, containerka la qaadayo, markabka qaadayo, meesha lafteeda la geenayo lafteeda in la dhiso u baahan tahay. wax quality leh ayaanu doonaynaa inaan wadanka intaan geeyno dadkana ay ka faa'iidaan. qiimuhu waxa weeye 300,000 oo euro weeye. lacag fara badan weeye, waan garanayaa. laakiin lacagtu marka ay saas u badan tahay hal qof way ku badan tahay. laakiin haddaad fikirto oo tiraahdo war 3,000 oo qof oo min 100 euro bixiso, lacagtii oo dhan way soo xarootay. ama 6,000 oo qof oo min 50 bixisa, lacagtii way soo xarootay. soo marka gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. waxaan u baahanahay dadkeena hal doorka ah inaad la qaybsato saaxiibada, inaad la qaybsato maxaa walaalaha kaleeto, inaad sii qaybiso, sii share garayso. qorshahaygu wuxuu ku jira xitaa inaan magaalooyinka kaleeto oo waaweyn inaan geeyno si dadku ayna ugu baahnaan inay Muqdisho yimaadaan. marka walaalayaal, meel kastoo aad joogto, dadka Sweden jooga waxaan idin sameeyay lambar aad lacagta ku soo dirtaan. dadkiina kaleeto Yurubta iyo America iyo Australia iyo intiina kaleeto joogtana waxaanu idin sameynay GoFundMe kuwa la yiraahdo. maadaama lacagta aan halkan uga baahanahay ilaa halkan baa alaabtii laga iibinaya, Yurub baa laga iibinaya. xitaa hadday jiraan dad Soomaali ah oo raba inay ka qayb qaataan oo Soomaaliya jooga, xitaa waxaad isticmaali kartaan xawlaada magacayga, telefoon lambarka xitaa halkan buu ku qoran yahay. aad maaragtay ku soo diri kartaan haddaad rabtaan inaad ka qayb qaadataan khayriyaadkaasaytay. ajri xasanaad Allah idinka siiyo. magacayguna exactly sida uu halkan ugu qoran yahay ayuu maaragtay u qoran yahay. Göteborg Sweden baad ku soo qoraysaa insha Allah. si toos ah bay ila soo xiriirayaan ama iyaga waa akoonka ku shubay si toos ah. lacagtaas xataa waxa iigu jirto qorshe anigu aan sameeyay oo ah xitaa nin technician inuu raaco oo technical, maadaama waxaan ay computer yihiin oo de sensor yihiin oo de urinaya, wax urinaya, hawo urinaya, oo in aanu helno qof farsamo yaqaan ah oo na raaco meesha la taga, alaabtii noo fadhiisiya, isla markaasna ayaamaha uu joogo xitaa dadka meesha ka shaqeeya uu intuu barbaro uu tustuso si ay u daartaan u damiyaan. marmarka qaarkood korontada wadanka way tagtaa ama waxba iska dhici karo oo bahalku intuu isdamiyo koronto xoog leh intay ku soo dhacdo uu isdamin karaa. waxyaabo fara badan baa dhici kara. marka lacala hadday meesha wax damaan qofkii inay daaran karaan, inay isdabari karaan. laakiin markan waxa weeye waxaanu ka kaaftoomaynaa totally inaanu lacag u aruurino oxygen ahaan darteed. mar haddaan meeshaas warshadaas aan geyno, aan ayaga aan u geyno
lacag aruurin dambe ma jirto insha Allah warshada iyada ay noo shaqeynaysa iyada lafteeda ayaa wax soo saar yeelanaysa waxa kale oo ku jira faa'iidada warshada ay leedahay oo qorshahayga ku jiro xataa warshadana ku jiro waxa ay tahay in ay leedahay inay buuxin karto haamaha laftooda ama silindarka ay buuxin karto haamahaas waxaan uga jeedaa waxay tahay in haama yar xataa lagu rakibo oo la siiyo ambalaasta gawaarida gurmadka degdeg ah oo kaleeto because dadka ama coronavirus qabo ama hooyo umuleysaba ha noqoto inta uu transportka jidka intuu kusoo jira xitaa inaysan oxygen-ta aysan ka kala go'in sidoo kale waxaan idinkaga baahanahay inaad nala shaqaysaan asxaabtiina aad u dirtaan waliba aad dhiirigelisaan oo aad ku dhiirigelisaan inay sadaqada noocan ah ay la baxaan waxaan idinkaga rajaynayaa inaadna taageertaan oo nagu taageertaan inaan caawino walaalaha kaleeto oo meesha jooga sidoo kaleeto waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo dhaqaatiirta kalkaaliyayaasha ayaan idinkaga mahadcelinayaa shaqada wanaagsan aad dalka iyo dadkaba aad u haysaan ilaahay ha idinla garab galo annagana waxaa nagu waajiba inaan la nimaadno kaalintayadii oo dalkeennii aan wax ku soo celino insha Allah mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan idin dhihi lahaa walaalayaal ka qayb qaata tabarucaan adduunka ceeb bay ku tahay qof la yiraahdo oxygen buu dhintay oxygen la'aan buu dhintay qof kastana wuxuu leeyahay war dawladda maxay wax u qaban weyday marka inta aan dawladda eedeyn lahayn waxa la qaatina annagu is eedeynoo dhahna war annaga maxaan qabanay midka aanan haysanin oo aan awoodaas lahaynna fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad saaxiibadaada kaleeto aad ku dhiirigelisid inay bixiyaan adigana aad u duceysid inuu ilaahay nagu guuleysiiyo barakallahu fiik khayr baan idin rajaynayaa waa aniga iyo walaalkii Yaasiin Cabdullaahi waxaan idin kala soo hadlayaa magaalada Göteborg ee dalka Sweden inta aynu sidan barnaamij sidan oo kale aan ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa warsan iyo weersan